kadibna waxaan ku idhi buu yidhi intii aanu sii soconnay alaki zawjun nin ma leedahay markaasay igu tidhi buu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaa'a in tubda lakum tasu'kum waxaan ku idhi buu yidhi qolamaa tahay waxay igu tidhi buu yidhi walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas'uula muddo 40 sano ah ayay tidhi hadal waa iga xaaraan in aan qur'aanka ku hadlo mooye sha'nigeyguna waaba sidaa markaasaan idhi buu yidhi daalika fadlullaahi yu'tiihi man yashaa'u والله ذو الفضل العظيم شهاب الدين الأبشيه إمام كي لورن جراي مدي قرنجي سيدات كمد أها أيا كتاب كيسا المستظرف في كل فن مستظرف وحقوق الشيء قصة عجبت بدن وحو يري إمام كي ويناي عبد الله ابن المبارك أها أيا وحو يري خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة كمدة أيان أبحي بويري إنا سو حجيو نبي محمد صلى الله عليه وسلم ضريحي سنة صو بوغضو أنيقو طريقة كسي جربويري أيا وحان أركي أمن درار قبض وين أو إسلانا وان كوي عيبويري وطريقي أيا ميالك مدى جوكتا مركاسا وحان ويدي وان سلامي بويري وحان كوري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيوغو جوابتي آيات قرآن أي سلامتي كجعلسي سلام قولا من رب رحيم بيته وحان كوري بويري هل كان محاد كقبريسا وحيوغو جوابتي آيات كلو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى waxaan fahmay buu yiri inay u jeedo inay ka timid xaramkii Makka oo ay cibaadadii soo gudatay ay u socoto inay gurigeedii ku noqoto oo Baytul Maqdis iyo halka iyo Qudus iyo Falastiin ilaahay Qudus hayno xoreeyaa aamin dhaha cadawga yahuuda ilaahay ka qabtay aamin dhaha muslimiinta ilaahay u soo celiya aamin dhaha muslimiinta reer Falastiin ilaahay cisi iyo awood ilaahay ha siiya aamin dhaha al-Faatiha halkeebaad cunto ka heshaa min ayna ta'amuki ما أركو عنت عاد ودتيده عنت عاد وام حي هالكاد كهشة وحي سوق قاعدة آيات القرآن كهيد النبي الله إبراهيم وكل شيء عد قودسا ورابسا والذي هو يطعمني ويسقين وحنكو يريبو يري عنتان هياي وحمكسيا وحي تريبو يري ثم أتم الصيام إلى الليل إن يصومن تايبان قرتيبول maxaad ku weysaysataa wax biyo agtaada kuma arko eeriyada nabiga kama dhaweebaan ilibuu yiri walam tajidu ma'an fatayammamu sa'iidan tayyiban baygu tiribuu inay gabagabaysato oo ay ciida ku gabagabaysato ayaa aan dareemay buu waxaan ku ilibuu yiri waad sooman tahay waqtiga safarkana ilaahay wuxuu inoo ruqseeyo inoo baneeyay inaynu soonka iska dayn karno maxaad la soontay safar baabad ku jirtaay waxay igu tiribuu wa an tasuumu khayrun lakum inaad soontaan ayaa idin khayr badan aayada oranaysa ayay akhriday buu yiri waxaan ku yiri buu yiri sidan aan anu kula hadlayo oo kale maxaad igula hadli laada ee quraanka miidhan igu dardalaysa waxay tiri buu yiri ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid de ruuxna hadal kuma hadlo illa si agtiisa raqib atid baa aho laba malad baa hadalkayga iga qorayo hadalkaygu si aanu qalad iyo xumaan iyo qalooc u gelin quraanun inaan kuugu jawaabo ayaan go'aansaday ayay tiri oo saasan u fahmay waxaan ku iri buu yiri qolama tahay waxay igu tiri buu wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula harraa'ino hadaba gelin wax aanad ogaal u lahayn oo cilmi u lahayn maqalka araga iyo qalbigaba waa lagu weydiinayaa qiyaamaha su'aashaasi su'aal fiican ma ahe ka weecaya markaas uu yiri waan khaldamay iska kaysaam markaas ay akhriday buu aayadii nabi Yuusuf وولاله كيري لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وحناني كركينا ما أهانين إلهي سبحانه وتعالى يدين ضافي دونه وإن يعفدي به هالكا يقول شيء تقول وحن كيري بو يري ما هي ستد وحجادي ده هالشيء ما تصافوا لي أنا أقول ماكو جارسيا سفر كي كاهر مري ماكو جارسيا ضد هالكا إنه يقولوا ماكو جارسي مركز يقول تقول وما تفعلوا من خير يعلمه الله وحد سميسان خيرا إلهي ويدينوك يعني واد ما هتصنتها إلهي بقى أبال مرين دونه إيه سميه هي مركز وحن أتشويه أو الأفريسي هالشيء دي سأي أكرته
oon anna hoggaanka ugu qabto oo aan maxaan idhahdaa ugu kaxeeyo markaasaa waxay akhriday buu yidhi qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim oo macnaheedu uu ka dhigan yahay indhaha laabo hay soo eegin dee gabadh gaadiid fuulaysaa kolley way xaydxaydan indhahaaga iga laab indhihii baan iska laabay buu yidhi kadibna way fuushay buu yidhi markaasaa hashii ayaa diday buu yidhi oo haraatiday oo marada ka jeexday markaas halkaynu inagu ka nidhaahno ama aynu ka qoomamoono ayaa waxay tiri wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum waxa idinku dhaca oo musiibo ah waxa aad gacmihiinu ay galabsadeen ayay idinku dhacay yani kolley dembi horoon galay uunbay hashaasi ii haraatiday ayay ka wadaa waxaan ku idhi buu yidhi yarsug aan hasha kuu dabro oon kuu qabtee waxay igu tiri fafahamnaahaa sulaymaana yani waad fahantay muraadkaygii haye waad mahadsantahe hasha ii dabar bay ka wadaa hashii baan dabray buu yiri way kortay buu yiri subhana alladhi sakhara lana hada aayadii lagu korayay gaadiidka ayaa ay akhriday buu yiri kadibna hoggaankaan u qabtay buu yiri waan yar dheereeyay buu yiri kolkii aan hasha ku waday markaas ay akhriday buu yiri waqsid fi mashika waqdud min sawtika yani aayar soco qayladana joojiyo aayar hadal ayay ka wadaa buu yiri kadibna waan socday buu yiri hasha waxa loo qaadaa hees baan u qaaday heestii geela loo qaadi jirayo gabay baan daldalay markaas ay igu tiiri faqra'u ma tayassara min alqur'ani intaad gabay daldali lahayd calashan qur'aanka akhri ayaa ay ka wadaa kadibna waxaan ku idhi buu intii aanu sii soconay alaki zawjun nin ma leedahay markaas ay igu tiiri buu yaa ayuha alladina aamanu la tasalu an ashya'a in tubda lakum tasu'ukum mu'minino hawaydiinina nabiga sallallahu alayhi wa sallam ha su'aalina shay hadii la idin muujiyo idin murugelinayo oo dhibi laga yaabo inay ka dambayso aanay dan idin ku jirin waan iska socday buu yiri safarkii ay ka hadhay amaba ay ka luntay ayaanu gaadhnay buu yiri kadibna waxaan ku iri buu weynaga safarkii gaadhnay safarka yaa kuugu jira cidimiyay kuugu jirtaa ehelkaaga ama ciidaad ka garanaysa markaas ay igu tiri buu al maalu wal banuuna ziinatul hayati dunya alashan dadna way jiraan wiilana way ugu jiraan hantina way ugu jirtaa kadibna waxaan ku iri wiilashaadaasi waa yahay maxaa ay qabtaano ma sha'nuhum fil hajj markaas ay igu tiri buu iri wa calaamaatin wa bin najmihum yahtaduna markaas aan fahmay buu iri in ay yani yihiin dadka xujayda wadooyinka tuse ee dhul mareenka inay awlaadeedu yihiin kadibna waxaan ku iri buu yiri intaan u qasday meeshii teendooyinkii ay dadku joogeen ayaan ku iri buu waa yahay ciyaalkaaga wiilashaada aan u yeedhay wiilasha meesha kuugu jira waa kuma markaas ay igu tiri buu watakhadallahu ibraahiima khaliila wa kallama allahu muusa takliima yaa yaxya khudul kitaaba kaasaan fahmay buu yiri saddex wiilo ibraahim iyo muusiye yaxya la kala yiraahdo inay ku leedahay halkaasaan dhawaaqay buu yaa ibraahim yaa muusa yaa yaxya markaas halkii ka soo wada bixeen buu markay agteeda yimaadeen ayaa waxay ku tiri fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila almadinati falyanzur ayuha aska ta'aman falyatikum birizqin minhu way dhaqaaqeeno quud iyo cunto ayay u keeneen buu cuntadii markii la soo dhigay iyadu may cunine anigii bay igu tiri buu yiri kuluu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya markaasaan joogsadayo wiilashii baan ku iri cuntadiinu waa iga xaaraan ilaa aad iga warantaan hooyadiinan shanigeey markaas ay igu yiraahdeen muddo 40 sano ah ayay tiri hadal waa iga xaaraan in aan quraanka ku hadlo mooyee shanigeeguna waaba sida markaasaan iri buri dalika fadlullahi yuutihi man yashaa wallahu dhul fadli alazim wajazaakumullahu khayran wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh